بسم الله الرحمن الرحيم جمع wanaagsan daawadayaal qodobada wararka ee aan xiliga kan idin hayno waxa kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado iyo ra'iisul wasaare Khayre oo heshiis ku kala saxiixday Cadaado maxaa kamid ah heshiisyadaasi waan idin haynaa wafdiga ra'iisul wasaare Khayre oo ku wajahan saacada kadib magaalada Cabudwa ee gobolka Galguduud iyo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha oo ka socota Cabudwa si uu ra'iisul wasaaraha وعبودة قصو قبقبيو سعودالكيسا قلمدو وانا ايقي دونا وجيدنا اقوين رئيس الوزراء واتيقي دونو مقالة عبودوها هذا بدا كلاء وركينا وحا كدنا مدحوين واري وقدقي دادك كسو جيدا قلمدو كسو قان مطبان يوقع ديد دقال او اي ليدا هاي باشا هبرقدير او حالي قلي دقمدا مطبان هالكاسي او دقال حوقان او كاقر حي مالنتي شري وركا كسو سن مطبان waan idin soo gudbin doonaa waxaad kala warkana ku daawan doontaan al-shabaab oo toogtay oday waayeen oo isku guursaday gabar iyo hooyadeed goobta toogashada ay ka dhacday iyo macluumaad ku saabsan warkana ayaad ku daawan doontaan qodobadaas ayaan idinkugu haynaa warkeena mar kale jimco wanaagsan haddii daawadayaal uu qaarkiin idinku cusub yahay channelkeena like iyo subscribe sara haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan dhowr qodobo ayay ku heshiiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Cadaado kadib shir xalay ay ku yeesheen magaaladaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qodobadii ay ku heshiiyeen odayaasha magaalada Cadaado iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa kamid ah in xalal muhiim ah bulshada reer Cadaado ay ka helaan maamulka Galmudug ee la dhisi doono in magaalada Cadaado ay sideeda u sii ahaato xarunta baarlamaanka ee maamulka Galmudug ee la dhisayo xarumaha maamulka ee magaalada Cadaado ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale xaraga waxa uu ka jaray xarunta cusub ee ciidamada maamulka Galmudug ee ku taala magaalada Cadaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Cadaado intii uu kulan ka socday waxa uu ku qanciyay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan kala jeclaysan doonin bulshada ku dhaqan guud ahaan dalka sidoo kalena aysan raali ka noqonaynin dawladda xuquuqda qayb kamida bulshada in lagu tunto oo ay wayaan intaas kadibna odayaasha ayaa garwaaqsaday hadalka ra'iisul wasaaraha iyagoona ku qancay balanqaadidii uu sameeyay dhinaca kalena wafdiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ku wajahan magaalada Cabudwa ee gobolka Galguduud wararka ka helay degmada Cabudwa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socoto diyaargarow ku saabsan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha bilicda magaalada ayaa la qurxiyay waxaana gudaha magaalada la suray calanka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale amniga oo si aad loo adkeeyay magaaladaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa ugu horeeya xildhibaano ka tirsan dawladda oo ka soo jeeda deegaan ahaan Cabudwa iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug mudane Maxamed Cabdi Xaashi Carabi halkaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu doonayaa inuu ku soo gabagabeeyo socdaalkiisa maadaama Cabudwa ay ka mid tahay degmooyinka ugu muhiimsan ee gobolka Galguduud waxaana wafdiga ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kale ee ku sugan magaalada Cabudwa ay ka wada hadli doonaan dhisitaanka maamulka cusub ee Galmudug maadaama ra'iisul wasaaruhu bulshada ku nool Dhuusamareeb iyo bulshada ku nool Cadaado uu horay ula soo shiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa marka uu tago Cabudwa waxa dhinacyada uu la kulmi doona kamid ah bulshada ku nool degmadaas siyaasiyiinta Galmudug ee ku sugan Cabudwa iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaasi ee ka tirsan dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya safar caynkan oo kala ah uu ku bixiyo gobolka Galguduud halkaasi oo markii si ugu horeysay uu u tago xalinta xiisadda Galmudug wali waxaad daawanaysaan warkeena bal haatanna haddii aan eegno dagaalka ka soo cusbanaaday degmada Matabaan madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul kaga hadlay dagaalka ka soo cusbanaaday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka hubeysan ee kala taabacsan bulshada ku nool Matabaan in hubka ay dhigaan dagaalkana ay joojiyaan Maxamed Cabdi Waare ayaa yiri dagaal waxba kuma soo kordhin karo bulshada Matabaan waxaana ka codsanaya dadka walaalaha ah in dagaalka ay joojiyaan madaxweynaha Hiirshabelle ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee dadka isku haystaan ay tahay xagga deegaanka dadka deegaanka hore ugu sugnaa iyo kuwa lagu soo dagayba
ee soo macin baday deegaanka waa in si walaaltinimo ay ku wada noolaadaan waa in dagaalka la joojiyaa waa in cid waliba booskeeda ay dib ugu laabataa sidaas waxaa yiri maxamed cabdiwaare hadalkiisana waxa uu sii raaciyay in Hirshabelle dadaal fara badan ay ku bixinayso xalinta dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan hadalka siyaasadaysan ee ka soo baxay madaxweynaha Hirshabelle maxamed cabdiwaare waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo geesta kale degmadaas habeenkii xalay ku guureeyeen gaadiid dagaal oo ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud gaadiidkaasi dagaal ayaa la sheegay in ay gurmud u sameeyeen mid ka mid ah labada maleeshiya ee ku dagaalamay shalay gudaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan taasi ayaana laga cabsi qabaa in colaadda ay sii xoojiso Matabaan waxa ku soo laabtay sanadooyinkii ugu dambeeyay dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadkaas oo isku haysta xagga deegaanka kuwaasi oo iska dilay dad fara badan dhanka Galmudug ma jirto ilaa iyo haatan wax war oo ka soo baxay oo ku saabsan dagaalka ka soo cusboonaaday Matabaan ee u dhaxeeya bulshada ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo iyada ayaaba teeda u yaaban oo xiisad siyaasadeed ay ka dhex alulsan tahay ugu dambeyntiina al-shabaab ayaa deegaanka Tooro ee gobolka Shabeellada Hoose ku toogtay oday waayeel oo isku guursaday gabar iyo hooyadeed xarakada al-shabaab ayaa goob fagaaro ah oo ku taala deegaanka Tooro ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay shalay gelinkii dambe ay ku toogteen oday 75 jir ah kaasi oo ay ku eedeeyeen inuu isla wada guursaday gabar iyo hooyadeed boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka Tooro ayaa al-shabaab isugu soo bixiyeen fagaaro ku yaala deegaanka Tooro halkaas oo ay ku toogteen odaygaas oo magaciisa lagu sheegay Abshir Maxamed Cabdi garsooraha maxkamadda al-shabaab ee deegaanka Tooro ayaa sheegay toogashada ka hor in uu maxkamadda u soo dacwooday nin adeer u ah gabadha uu odayga guursaday oo lagu magacaabo Xasan Khaliif Aadan isagoo ku eedeeyay in gabadha hooyadeed uu horay u guursaday una qabay xilligan hal cunugna ay u dhashay dhacdadaas oo ah mid ku cusub geeyiga Soomaaliyeed ayaa waxaa xusid mudan in al-shabaab ay dil toogasho ah ku fuliyeen dad ay ku eedeeyeen falal caynkan oo kala ah dadka ku nool goobaha ay ka taliyaan ilaa iyo haatan xarakada al-shabaab ayaa la qabsaday xukunada al-shabaab iyo sidoo kale iyo kiisas aan horay looga arki jirin geeyiga Soomaaliyeed warkii oo aad kala socoteen maanta oo Jimco ah warbaahinta danan waa naga inta mahadsanidii